waxaan idinku soo gudbinaynaa noloshii fanka qayb ka mid ah ee abwaankii ama fanaankii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cabdi Salaad Beer Dilaacshe beer dilaacshe Allah u naxariistay waxa uu ku dhashay Wajeer sanadku markuu ahaa 1944 markii ugu horeysay waxa uu dugsi ka galay asagoo marka aad u daayay degmada Doolow yaraantiisii beer dilaacshe Allah u naxariistay waxa uu jeclaa fanka wuxuuna si aad ah isugu dayi jiray mar inuu heeso ama uu noqdo fanaan la yaqaan oo dadku ay heesihiisa aad u jecel yihiin Ibrahim Xasan Maxamed Daandurey oo kamid ahaa wariyaashii idaacadda Radio Muqdisho ayaa 1983 dabayaaqadeedii waxa uu ka wareystay Allah u naxariistay ee beer dilaacshe umuro ku saabsan taariikhdiisa fanka iyo heesaha uu qaado Daandurey waxa uu weydiiyay inuu wax ka sheego oo uu wax uga sheego sidii heelooyinkii hore loo qaadi jiray iyo cidii sameyn jirtayba Daandurey oo umurtaas u weydiiyay beer dilaacshan uu ka jawaabayo waxa uu yiri waa heeso oo waxa weeyaan waxa jirta abyadooda iyo qaalinkooda ama ruux gooni inay gooni u tahay ama maartay mirahoodaba gooni ay yihiin laakiin heelooyinkii hore waxay ahayn hees intuu heelo intay soo baxda mar ninba soo saaray marka waxa dhici karaysa maartay dadka heesaaga oo dhan inay ku wada heesaan marka abyadana waa la dul saari jiray Allah u naxariistay Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshe magaalada Muqdisho waxa uu yimid sanadku markuu ahaa 1954 isagoo oo markaas ka yimi degmada Afmadow wuxuuna galay dugsigii caanka ahaa ee magaalada Muqdisho ku ooli jiray ee la oran jiray dugsiga Macallin Jaamac markale waxa Daandurey uu weydiinayaa beer dilaacshe in uu heeladii ugu horeysay ee uu qaado ama meel fagaarahba uu ka heeso uu xasuusto wuxuuna markaasi garaacayaa beer dilaacshe heestii xilligaas uu qaaday waxaanay tahay heestu sidan waxaan caad iga saarayn hubantina ah in fanaaniintii hore ay dhammaantoodba dhibaatooyin fara badan kala soo kulmeen fanka iyo sidii ay ku soo gaari lahaayeen hobalnimada ay maanta ku taamayaan waayo waagaasi fanku waxay ummadda u haysatay wax laga xishoodo oo foolxun waxaana dhici jirtay in mararka qaarkood ay fanaaniinta waalidiintii dhalay kala soo kulmaan canaano iyo iyaga oo ku xabisa guriga una diida inay u soo banaan baxaan goobaha fanka waxaana jirtaba markaasi in hobaladu ama fanaaniintu ay tegi jireen meelo fagaara ah oo sida xaafadaha dhexdooda dadkuna isugu soo ururi jireen iyagoo markaasi dadka qaarkoodba ay qabeen in ay waalan yihiin haddaba Cabdi Salaad Beer Dilaacshe halkaasi ayuu kaga soo talaabay ama u soo gudbay badda fanka wuxuuna la qabsaday mawjadaheeda
cabdisalaad beerdilcashe sanadku markuu ahaa 1956 ayaa waxa uu qaaday hees ku saabsanayd dagaalkii gardarrada ahaa ee yahuudda faransiiska iyo ingiriisku ay ku soo qaadeen khooriga Suez ee dalka Masar waxaana ka mid ahaa heesihii uu markaasi qaaday yagi isu baaqayo baxayo barigya dunidii ka soo badiyo wayagi bursaciid ku soo baxayo intoodii badnayd la baabiyo markii hadhay baylah weeyaane maxay kula soo baxayaane maxay kula soo baxayaane maxay kula soo baxayaane anigoon iligiyo iliga dhicinay ilaahi ifka iga soo saaro anigoo ukula eeg ilaahu amarka ummadda soconaysa igu darayo intaa wadigii ayaan ku hebye ayrubo wayada addoonsi rabtee islaamka loo adkaysiye islaamka loo adkaysiye islaamka loo adkaysiye marka heeskan waa hees maakhir baa lihi jiray isaga waa heeskaas mira gooniyo isaga kuwan ku qaadi jiray jawharaluulana waan ku qaadi jiray heesaha oo kuwan ka mid ah mirihii kalena hataa waxaan jeclahay inaan kuu sheego iyagoo weliba aan ku qaadahay bal taa jawharaluul ahna na maqashay kun 1957 cabdisalaad wuxuu qaaday heeso aad iyo aad ay dadku u jeclaysteen ilaa iyo haddana ay jecel yihiin heesahaasi oo aan filayo cabdi inuu qaar inooga soo qaadi doono heesaha waxaa ka mid ahaa higsan iyo nugul iyo iyaan qaadi jiray
cabdow heesaha aad ii sheegtay nugul iyo kaar iyo olol iyo madiix inkastoo ay dhammaantoodba ka wada tirsan yihiin heelooyinkii hore lagu luqan jiray haddana aanay ka wada dhicin oo dadku ay wada jecel yihiin bal mid uu nooga soo qabo kabankaagana inooga dhawaaji cabdi salaad aadan beerdilaash sanadkii 1963 ayuu ku soo biray hobalada radio artistes cabdi waxa uu qaadaa heeso isaga alifay iyo qaar kale oo isagu ku luqayo aadna ay dadku ilaa hadda u jecel yihiin waxaana ka mid ah heestii la oran jiray waxaan ahay nin dooba iyo heeso kale fara badan cabdi isaga ayaa inoo doorayay heesta kale nagu talagalay cabdi wax ma ka xasuustaa heesihii aad ku soo caanbaxday lixdameeyadii iyo wixii ka dambeeyay waxaa ka mid ahaa goofaartankii xalay waxaa ka mid ahaa markaan hawd ku noolaa aan geeli hayn jiray oo anigii waxsan wada qaadi jirnay bal goofaartanka lafteeda inoo soo qabo anuu gacanta kugu dhageen golni uma furfuray arrimahan
iswada galay intimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin goni uma furfuray mago'o jacaylkuyo gablo iga cayaare mago'o jacaylkuyo gablo iga cayaare gofaartankee xalay markaan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga tidhi gofaartankii xalay markaan gogosha kugu tabay ka eegay gooyaa ka waayay garabkayga ilma gobooma iga ka sokow xagga heesaha allah u naxariistay cabdi salaad aadan beer dillacshe waxa uu ahaa nin wax ka yaqaanay dhinaca muusikada waxaanu garaaci jiray oo uu si wacan weliba ugu fiicnaa kabanka heesihii aad maqlayseenna asaga ayaa gacantiisa iminka ku garaacayaba allah u naxariistay beer dillacshe waxaa malakulmoodku uu soo food saaray oo tii rabbi ay u timi abbaarihii bartamihii 80meeyadii xilligaas oo shil baabuur uu ku geeriyooday muuqaal ahaan waxa uu ahaa nin bidaar leh oo dheer midabkana waxa uu ahaa midab maariin xigeena waxa uu ahaa nin markaasi garka xira shaarubahana daaya qaab masraxiyeedkiisana waxaa jiray dad fara badan oo ka heli jiray ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsana ha ka waraabiyo Buramburiyo hees ahelo iyo cayaar dabaya haybadiyo hadhaale baanu hindisna Buramburiyo hees ahelo iyo cayaar dabaya haybadiyo hadhaale baanu hindisna intaa waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii fanka iyo fanaanka ee toddobaadkan oo aan idinkugu soo gudbinay qayb ka mid ah fankii allah u naxariistee cabdi salaad aadan beer dillacshe dhinaca farsamada barnaamijka waxaa gacan naga siiyey liibaan cabdulqaadir xaaji dib intaan u kulmi doonno ilaa toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa kulanti dambe oo wacan Buriyo hees ahelo iyo cayaar